goortan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkii shan dhacdo iyo shaacinta alool oo aynu kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu weynaa ee colaada Ukraine iyo siyaasadda caalamkaba haddii alla idmo. barnaamijkan waxaanu idinku haynaa daawade ururka NATO oo ugu dambeyntii aqbalay Sweden iyo Finland. maxay tahay warmurteedka ay kaga hadleen Ruushka? waanu idin haynaa xogtaas. maxaa Turkigu u ogolaaday hadda in uu la heshiiyo dowladahan uu hore u diiday? Ruushka oo hanjabaad cusub u diray dowladda Norway. maxay tahay muranka ka soo dhex dilaacay labadaas dowladood? Iran oo iyaduna warmurteed ka soo saartay wadahadaladii hubka nuclear-ka iyo qodobo kale. taariikhdu waa 30 June 2022. duca qabayaal shan dhacdo iyo shaacinta alool mar kale soo dhowaada. Ruushka ayaa sheegay in xanibaadaha ay soo rogtay Norway ay xanibeen badeecooyin degmooyinka dadka Ruushka ku badan yihiin ee jasiiradaha Arctic ee loo yaqaano Svalbard. waxaanay ku hanjabeen waa Ruushka tallaabooyin argos ah oo aan la cayimin haddii aysan bay dhaheen dowladda Oslo xallin arrinta Svalbard oo u dhaxaysa xeebta waqooyi ee Norway iyo cirifka waqooyiga. waa qayb ka mid ah Norway daawade. laakiin Ruushka wuxuu xaq u leeyahay in uu ka faa'iideysto kheyraadka dabiiciga ah ee jasiiradaha iyada oo la raacayo heshiis ay kala saxeexdeen Norway iyo Ruushku 1920. qaar ka mid ah degmooyinkaas qaaradaha qabow waxaa degan amaba ku badan dad ka soo jeeda Ruushka. Norway oo aan ka tirsanayn midowga Yurub balse ku dhaqanta cunaqabateynta midowga Yurub ee ka dhanka ah Ruushka ayaa sheegtay in cunaqabateyntu aanay saameyn doonin gaadiidka maraakiibta ee Svalbard, laakiin inta badan shixnadaha u rarnaa degmooyinkaas Ruushka ee jasiiradaha ayaa marka ugu hore soo mara kantaroolka laga galo dhulweynaha Norway, kaas oo ka xiran ama hadda ka xiran badeecadaha la cunaqabateeyay ee Ruushka. waxaa la odhan karaa waa siyaasad isku qasan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in ay u yeertay siyahayaha arrimaha dibadda Norway si ay uga mudaharaadaan bay dhaheen xanibaadahan, kuwaas oo ay sheegeen inay hakad geliyeen gaarsiinta agabka muhiimka ah oo ay ku jiraan bay dhaheen cuntooyin iyo agab caafimaad oo muhiim ah. NATO waxay ku casuuntay Sweden iyo Finland inay ku biiraan isbahaysiga militariga, mid ka mid ah isbedeladii ugu weynaa ee amniga Yurub tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey. duulaanka Ruushka ee Ukraine wuxuu ku riixay Helsinki iyo Stockholm in ay ka tanaasulaan dhaqankoodii hore ee siyaasadooda dhexdhexaadnimada ku dhisnayd. soddonka xulufada NATO ayaa go-aanka qaatay kadib shir madaxeed ay ku yeesheen caasimadda Spain ee Madrid. waxaanay sidoo kale isku raaceen inay si rasmi ah ugu aqoonsan doonaan Ruushka khatarta tooska ah ee ugu weyn uguna halista badan amniga xulufada, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shir madaxeedkaas ka dhacay Madrid. kadib markii Turkigu uu ka qaaday diidmadiisii ku aadaneed Finland iyo Sweden inay ku biiraan ururka NATO, waxaa bayaankoodan NATO lagu sheegay: maanta waxaan go'aansanay inaanu ku marti qaadno Finland iyo Sweden inay xubin ka noqdaan NATO. inkastoo mabda ahaan ay isla qaateen xubinnimada labadan dal, haddana ansixinta baarlamaanka xulafada waxay u badan tahay in ay qaadato ilaa 1 sano. laakiin marka la dhammeeyo, Finland iyo Sweden ayaa waxaa lagu dabooli doonaa bay yidhaahdeen qodobka 5aad ee difaaca wadajirka NATO, taas oo la hoos keeni doono dalladda Mareykanka. saacadihii ka dambeysay heshiiska Turkiga, Sweden iyo Finland waxaa si weyn laysu weydiinayay maxay yihiin qodobada ay ku heshiiyeen. si aynu su-aashaas uga jawaabno, waxaynu in yar dul maraynaa maxay markii hore Turkiga iyo Sweden iyo Finland ay isku sheegeen oo Turkigu uu u diiday inay xubin ka noqdaan. dowladda madaxweyne Erdogan waxay sheegtay in dowladaha Sweden iyo Finland ay martigeliyaan madax ka tirsan jabhadda PKK oo ah jabhad kordhishiin ah oo Turkiga dagaal kula jirta. sidoo kale waxay labadan dowladood cunaqabateyn saareen Ankara kadib dagaalka Suuriya, taas oo ka xayirtay iibsiga qalabka laga sameeyo hubka iyo dhaqaalaha xawaaladeed oo jabhadaas
labadan dal looga soo diri jiray. haddaba su-aashu waxay tahay hadday sidaas ahayd maxaa isbedelay oo ay hadda keenay inay heshiiyaan. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxaa lagu sheegay in heshiiskan yahay guul Turkigu uu gaadhay oo uu helay buu yidhi dhammaan qodobadii waaweynaa ee uu ka doonayay heshiiskan. qoraalkan ayaa lagu sheegay in dowladaha Sweden iyo Finland ay ballan qaadeen in ay ka howlgeli doonaan qodobadan, in ay degdeg uga qaadi doonaan cunaqabateynta ay saareen dowladda Ankara, in labadaas dowladood ay ka howlgelayaan sidii ay Turkiga ugu soo wareejin lahaayeen madaxda iyo howlwadeennada jabhadda PKK ee ku sugan dalkooda, in ay dhaqso u joojin doonaan xawaaladaha ay dhaqaalaha ka helaan jabhadda PKK. waayahay haddaynu ku soo laabano colaadda Ukraine, madaxweyne Volodymyr Zelensky ayaa weydiistay hogaamiyayaasha NATO hub casri ah iyo lacag si ay u taageeraan dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah Ruushka, isaga oo ka digay in dagaalku uu ku faafi karo buu yidhi meelo ka baxsan xuduudka Ukraine. mar walba waa taa uu ku soo celceliyo ee uu kaga cabsiiyo haddii ay caawin waayaan in marka Ruushku soo burbursado Ukraine markaasna uu iyaga u soo gudbi doono. Zelensky ayaa la hadlay soddonka hogaamiye ee ururka isagoo kula xidhiidhay khadka maqalka iyo muuqaalka. khudbadda madaxweyne Zelensky wuxuu u jeediyey shir madaxeed muhiim ah oo ka dhacay caasimadda Spain, waana shirkaas ay ku ansixinayeen ka mid ahaanshaha Finland iyo Sweden. waxaa kale oo halkaa lagu qorsheynayay in lagu dejiyo qaab dhismeedka istiraatiijiyadeed ee 10 sannadood ee isbahaysiga, isla markaana uu bilaabo dib u habeynta ugu weyn ee difaaca iyo ka hortagga awoodaha ilaa dhammaadkii dagaalkii qaboobaa. hadalka Zelensky ayaa u eg mid ka dhigan baahi badan iyo baryo badanba waa la isku nacaa. inkasta oo reer galbeedku ay jecel yihiin guusha Ukraine iyo weliba sidoo kale jabka Ruushka, haddana waxaa jira alqalado kaga soo baxaya bulshada iyo shacbigooda. waxaynu ognahay in dad fara badan ay mudaharaado, kumanaan kun ay ku mudaharaadeen dowladaha reer Yurub, kuwaas oo codsanaya in hoos loo dhigo maciishadan kor u kacday iyo in la helo natiijada amaba cayimiinta xilliga colaadda Ukraine ay socon doonto, taas oo cidina aanay garanaynin. qodobkeena shanaad daawadayaal, wadahadaladii u dhexeeyay Iran iyo Mareykanka ee ku saabsanaa heshiiska nuclearka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka, ilaahay baa quwad leh, ayaa maanta ku soo dhammaaday Qatar. mas-uuliyiinta Tehran ayaa sidaa sheegtay. wakaaladda wararka ee Iran ayaa rasmiga ah ayaa sheegtay in wadahadaladu aysan jabin doonin bay yidhaahdeen ismariwaaga diblomaasiyadeed ee ka dhashay heshiiska. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo midowda Yurub oo iyagu dhexdhexaadin ka ahaa wadahadalada ka socda Qatar ayaan weli si degdeg ah u qiran in la soo afjaray wadahadaladaas oo ay guul daraysteen. warkaas wixii ka soo kordha iyo wixii kaleba daawadayaal, fadlan haddii aanad hore nooga tirsaneyn nagu soo biir si aad xogaha u dambeeya ee siyaasadda caalamka aada u heshid, iyo haddii mar walbana maba ahaa haddii mar walbana barnaamijka isdhaafi oo asxaabtaada la wadaaga oo sheerta iyo likes iyo followgaba dhinaca commentigana wixii falcelin ah noogu soo sheeg. waayahay intaas waa codsigii joogtada ahaa, taasina waxay ahayd xogtii maanta ee dhacdooyinkii u dambeeyey ee colaadda Ukraine iyo siyaasadaha kaleba. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono daawadayaal, gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana Allah.